aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shucuurteeda runtii lama soo koobi karo waanu ku faraxsanahay waxaan noo imaanaya madaxweynaha ayaga qaranka Soomaaliya waxa leena mudane madaxweyne ilaa iyo xalay ilaa maanta waa ku taaganaa ku soo dhawow caasimadda Garowe dadkaaga ah xukuntay reer Puntland madaxweyne soo dhawow waan ku leenahay saako dhan halka waa ku joognay magaalada madaxda Puntland Garowe bulshada oo dhan aad saaka ku soo dhaweynaysaa taageero balaaran ku haya madaxweynihii Soomaaliyeed ee amidkii ugu taageerada badnaa saaka sawirka ayaa bulshada isku haysatay waxa ay gaadhay in bulshada sawirka isku qabsato aadna waa ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii labaad booqasho ku tagay deegaanada Puntland safarka madaxweynaha waxa uu daarnaa ka qaybgalka munaasabadda lagu caleema saarayay madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay hogaaminta Puntland Siciid Cabdullaahi Deni booqashadii koowaad ee madaxweyne Farmaajo ku tagay Puntland oo aad loo wada xasuusto waxay ahayd bilowgii sanadkii hore markaas oo ay shacabka Puntland muujiyeen sida ay u jecel yihiin madaxda qaranka iyo dawladnimada madaxweyne Farmaajo oo ah hogaamiye ku yimid rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaa tagitaankiisii labaad ee Puntland waxa uu ahaa mid si maqaam sare loo soo agaasimay qaybaha kala duwan ee shacabka Puntland ayaa si baaxad leh uga qayb qaatay soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo garoonka diyaaradaha ee Garowe ku soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo waxa uu ka mahad celiyay sida mas'uuliyadda iyo sharafta leh ee madaxweynuhu uga soo qayb galay munaasabadda caleema saarka waxaan ku faraxsanahay imaanshiina waxaan rajaynaynaa in ay meeshaan ay noqoto kulan taariikhi ah sida wanaagsan ee aan kala harka lahayn ee dawladda Soomaaliya federaalka ah ee nagu soo karaamaysay annaguna waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay inaan noqono kuwo karaamadaas iyo sharaftaas loo sameeyay xasuusnaada horeyna u sii wada geedi socodkii Soomaaliya dawlad taabagasha ay u helayd waxaan insha Allah rajaynaynaa muddada madaxweynuhu joogana in uu la kulmi doono dhammaan xubnaha dawladda qaybahooda kala duwan baarlamaanka iyo inkastoo goluhu xukuumadda uu dhisnayn laakiin xukuumaddii hore ee madaxweyne Farmaajo oo hadlay waxa uu isna mahad celin u soo jeediyay shacabka iyo dawladda Puntland sida diiran ee ay soo dhaweeyeen isaga iyo wafdiga uu hogaaminayay waxaan runtii aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida sharafta leh ee waalidnimada leh adiga iyo shacabka reer Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweysay aniga iyo wafdigeyga iyo marti sharafta kale oo ila socota runtii waa filaynay soo dhaweynta wanaagsan ee waalidnimada leh waa filaynay حقيقة إن شاء الله هدو إلى يراهدو وحرجينا إن جونا هدو لوا عاشو هدو إلى يراهدو وأنا دلوا ذاقنو على مسارك يو حركة بلدجة أو الله هذا الشعب كرجلان خاصة الجروي هدو أبي يراهدو وأنا قوهم بلينا دور شدي سيد وناكسن ودعدي أو transparency هاي وأدون كون لقى في سنة هاي مرشحين قالنا يبغى نفتي وضع وحنا هاي حنبليو يلا يحيى سيدا وناكسن كنتي وقعب كلين دورشده كل وند يواقبل النتيجه taas waxay muujinaysaa Puntland inay tahay runtii dawlad dhameystiran oo muddo soo jirtay waxaan idin rajaynaynaa haddii ay biiraahdo guul hawshan Allah idin fududeeyo annagana federal ahaan waxaan diyaar u nahay wax alla wixii karaankeena inaan gacan ka geysano oo aan wada shaqeyno si aan dadkeena u horumarino imaanshaha madaxweyne Farmaajo kadib waxaa la gudagalay munaasabadda caleema saarka madaxweynaha cusub ee Puntland munaasabadda ayaa ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay marti sharaf badan oo halkaasi hadallo ka soo jeediyay ugu dambeyntii waxaa munaasabadda caleema saarka soo xiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku bilaabay hambalyo iyo duco ku socota madaxweynaha cusub ee Puntland waxaan leeyahay madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kugu hambalyeenayaa runtii guusha waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ku fududeeyo hawshan hawl sahlan ma aha waan naqanaa marka ummad la maamulayo oo weliba xaalado iyo duruufo adag lagu jiro wax sahlan ma aha ilaahay waxaan kaaga baryaynaa inuu hawsha ku fududeeyo
intaasi kadib madaxweynaha ayaa sharaxaad ka bixiyey sirta ka dambaysa nabadda iyo dowladnimada Puntland isagoo ku ammaanay qaybaha kala duwan ee shacabka Puntland sida ay markasta u garab taagan yihiin dowladooda. waxaan rabaa caawa halkan aad looga hadlay guusha iyo horumarka ay gaartay Puntland 20 sano ee ugu dambeysay. waa xaqiiqa waxay gaartay Puntland guul aad iyo aad loo taaban karo oo waxa isku soo wareejiyay xilka shan madaxweyne oo lix ku yahay Siciidani waxaanan la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxa guushaas keenay lama sheegin. waxa la yiri dawlad wanaag iyo dawlad waa dhab laakiin dawladda xagee ka timid dawladda yaa keenay waxa loo baahan yahay inaan taasi iyada naftigeeda aan si fiican u taabanno. dawladdan aan arkayno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo hawl badan ay salaadiinteedu ay qabteen. waxaan ognahay salaadiinta oday dhaqameedyada ee Puntland inay yihiin dad midaysan oo runtii nabadoono dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo walaaleynta dadka reer Puntland aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin. waxa kale oo keenay horumarkan arkaysaan culimada oo runtii aad iyo aad uga hadla dadka u wacyi geliya u iftiimiya dawladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dawlad la'aan in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hogaamisa. runtii hawl badan bay qabteen waxaan ognahay inta badan xitaa farintooda kaliya kuma salaysna ama kuma aadana Puntland ay waxay nagu soo gaartaa xamar iyo nagu soo gaartaa siday uga hadlayaan in dawladda laga dambeeyo in madaxda la adeeco aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin ajar Allah ka siiyo. waxa kale oo runtii gaarsiiyay Puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada oo aan la sheegin oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya shaqo abuur sameeya mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin. waxa intaas dheer oo aan la sheegin iyada media annagoo og media wax badan in lagu hadleen karo oo wax badan lagu burburin karo laakiin waa dhageystaa media ka jira Puntland inta badan dadku waxay ku wacyi geliyaan wax aad iyo aad u wanaagsan kuma wacyi geliyaan in dawladda laga hor yimaado in dawladda la burburiyo kuma wacyi geliyaan. ugu dambeys shacabka wanaagsan ee reer Puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo Soomaalinimadooda iyo dawlad jaceelkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid siday noo soo dhaweeyeen wanaag badan ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qorax ah ilaa saaka laga soo bilaabo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa siday dawladooda u garab taagan yihiin ayna u jecel yihiin. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda waddanka iyo sida ay muhiim u tahay in gacmaha la isqabsado oo danta guud laga wada shaqeeyo inta la iscafiyo. wada shaqeyntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaan ku raahdaa la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la is aamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto. waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin 18 sano ugu dambeysay dawladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurkii inaan la dhameystirin muddadaas aan la dhameystirin waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay'adihii shaqeyn lahaa ee dawliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaan ku raahdaa week ay yihiin ay tacbaan yihiin. intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dawladda dhexdeeda dhex yaala way oo aan hadda halkan ku fadhino 4 prime minister halkan aan ku fadhino caawa oo 18 sano ugu dambeysana la marayo ilaa 12 sano 12 prime minister la marayo markii maalin walba marka uu isbedel yimaado
waxa xaqiiqo ah maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxa xaqiiqo ah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dawladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka xoreeya dalka qolooyinkan nabadiidka ah ciidan adag oo xuduudadeena difaaca ciidan adag oo baddeena difaaca iyo ciidan cirba annagoona lahayn waxaasoo dhanna waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay oo ay tahay inaan wax ka baranno oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalinno wax alla wixii khilaafaad dhexdeenna ah haddii ay timaadana aan dhexdeenna ku xallisanno si aysan qofna u ogaan aynan u raadin dad shisheeye ah oo aan ka raadinno damaanad markaasaa waxaa la heli karaa waxqabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeenna marka la cabirayo dowladaha adduunka oo la leeyahay dowlad waa xoog weyn tahay ma aha tirada dadka ay leeyihiin ma aha baaxadda dhulka uu leeyahay ma aha khayraadka dhulka uu leeyahay ma aha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye institutionsna waxaa ugu horeeya kow in laga ilaaliyo hay-adaha dowliga wax la yihahdo musuqmaasuqa in laga ilaaliyo maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cudurka ku jira institutionska ama hay-adaha ku jira oo si sahla u burburin kara inta badan waxaa laga yaabaa inaan u naqaano musuqmaasuqa lacag laxada keliya ma aha waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye oo aan u qalmin oo aan aqoonteeda lahayn kartideeda aan lahayn khibraddeeda aan lahayn waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacaduhu shaqeeyo oo dowladda uu shaqeeyo oo khiyaamaya lacagta laxada keliya maaha lacagta laxada waa ugu weyn tahay maxaa yeelay waa resourcekii mushaaharaadka lagu bixinayey ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayey waana waxyaabaha runtii annagana wiiqay intii dowladnimadeenna ay jirtay wey sidaas darteed anigu kolleyba waxaan leeyahay hadalkayaan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa uga horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdama aan ahay odaygii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaas un dowladda shisheeye uusan la jirin wax kasta ay tahay inuu dowladdiisa ag taagan yahay mucaaradku waa kaas oo ah ka wax dhisaayo weeye ma aha kan dowladdiisa duminaya ma aha marka waa iga ballan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inaan wada shaqayno maxaan ku idhaahdaa inaan dhisno institutionskeenna in aan ummaddeenna u shaqayno oo aynan mar dambe aynan qalbi jabin shacabkeenna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu si kastaba ha ahaatee nuxurka laga dheehan karo soo dhoweynta taariikhiga ah ee shacabka puntland ku soo dhoweeyeen madaxweyne farmaajo ayaa ah mid muujinaysa sida shacabku ay u rabaan dowladnimo Soomaaliyeed.